hooyo deeqa cumar jaamac oo inanteeda lagu dilay bartamaha suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa oo maanta warbaahinta la hadlaysay ayaa waxay si dareen leh uga hadashay dilka loo geystay inanteeda oo lagu magacaabi jiray Shukriya Cali Aadan oo 10 sano jir ahayd isla markaana waxay sheegtay in cadaaladda iyo sharcigu aanay waxba u qaban ruuxii inanteeda dhagrayna uu suuqa la joogo waxayna hooyo deeqa fariimo codsiya u dirtay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali laamaha ammaanka iyo guud ahaanba cid kastoo ay arintani khusayso waxayna ugu baaqdeen cadaaladda la mariyo shakhsigii dilay inanteeda anigu hooyo dhibaataysan masiibo culus ku habsatay ilmaheegii yara lagu dhex gogoyay suuqa Hargeysa agoona cidii ciirsiba weyday waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi golaha baarlamaanka golaha guurtida golaha wasiirada xeerlaaliyaha guud gudoomiyaha maxkamadda sare intaaba in cadaaladdeeda hoos loo eego aanu ilmahayga kibir lagu dilay muddada ay aasantahay 4 bilood tahay ayaa naagtii ilmahayga kibirka ku dishay ayaa laygu soo daayay anigoo ah hooyada dhibaataysan marka horeba suuqa laygu dilay shirqool baa laygu dilay laba naagood bay ahaayeen midi ana i jeedinays midna ilmahayga bay qalanaysay sida anoo lay dilay maxaan maanta ku waayay cadaalad aan ku helo muwaadinimadii aan dalkan u dhashay aan joogo sida anoo geeriyeysan oo ilmahayga waayay oo gar iyo garooshi midna lay marin ilmahayga yara inta leegas 10 jirka ee agoonta ah ee yatiinta ee waxba geysanin ayaro dhalatay dawladda Somaliland gudoomiyaha gobolka maxkamadda Cabdi Qowdhan ayaro dhalatay ugu sii daayay xorriyadeedu magaalada ku taxtaash anna nabadgeliyo waayaro ilmahayga xabaal ku jirto oo masiibo igu habsatay cadaalad darrada inta leeg halkay igu heshay Somaliland gudaheega Muuse Biixi Cabdi waxaan ka codsanayaa horena baaq baan ugu diray mar labaadna baaq baan ugu diray inuu hoos eego hoos uu eego ilmaha yar agoontaas loo jarjaray degdegna uu igu soo qabto cidii ka dambeysay taliyaha CID-da gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa gudoomiye Cabdi Qowdhan iyo Faysal Xiis oo arrimaha midba mid warqad u dhiibay oo ilmaha yar naagtii gogoysay soo daayay degdeg ha laygu soo qabto sharciga ha lay keeno hortiisa Somaliland ha lay keeno ha lay kaco ha lay gurmado geesta kale qaar ka mid ah dadkii goobjooga ka ahaa dilkii loo geystay Shukriya Cali Aadan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ku baaqeen in cadaaladda la mariyo shakhsigii dilay marxumadan dilkii foosha xumaa ee ka dhacay maxay ahayd bishii 9aad magaalada Hargeysa iyadoo aanu maqalay gacan ku dhiiglihii isagoo la sii daayay isagoo aan 2 bilood aan xidhnayn hadiiba lagu maxay ahayd lagu kale heshiiyo xataa maxkamaddu miyaana lahayn dawladdu miyaana xeer ciqaabeed lahayn ilmaha yar ee agoonta ah ee muwaadinka ee aaba lahayn ee walaal lahayn ee hooyadooda ooyso ee maalin walba nuwaagooyso ee hortayada laga gowracay ayaanu ka hadlaynaa waxaan codsi dheer iyo codsi gaaban ba u diraynaa dawladda Somaliland oo u horeeyo madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha guurtida golaha guurtida golaha baarlamaanka xeerlaaliyaha guud dhammaantood waxaanu ka codsanaynaa in cadaaladda la hor keeno cidii ka dambeysay dilkii inantii yarada Shukriya Cali Aadan iyo hooyadeed Deeqa Cumar Jaamac cidii ku lug lahayd iyo cidii ka dambeysay in sharciga la hor keeno oo ay sharci hesho inantii yareed ee hooyadeed haysatay ee hooyadeed halka suuqa beerka ku shiilaysay ee miskiinada ahayd ee 6 jirka ahayd ee cid wax u geystay aanay jirin gabadha gowracday ee waxa ay ku lahayd aanay jirin ee midida la dhacday halka ku bireysay waxa la yaalo wax loogu qabtay aanay jirin saas in ma real cadaalad ba waxaas ma xaq baade waxa weeyaan in dadka xaqiisa iyo xuquuqdiisa la eego weeyaan oo dadka wax loo qabto gabadha halka ilmaha yar saqiirka ku dishay ee hooyada halka beerka la fadhiday ee fijaanka u soo qabqabanaysay gabadha halka ku dishay halka ku bireysay in la soo daayo horta inaad ma xaq baa oo ma xuquuq baa halkay ma wadanka sharciga jirin maana cadaalad jirin waxaan idin leenahay madaxweynaha ka codsanaynaa in gabadha wax loo qabto hooyada halka ku dhiban ee cid wax qabataana jirin ee inanteedii halka lagu bireeyay ee halka hadana hormaraysa 24 saacadood ilaa adigana waan ku dileena anagu dadkii suuqa la joogay baan nahay ee xogogaalka ahaa ee weligeed gabadha halkaan biir ku shiilaysa ilmaheeda yar halka ay gacanta salaada afartaaminta soo qabsato ay odhanaysa bilaad kay soo qabayay maanta waxa weeyaan dadkay wax loo qabtay weeyaan cadaalad iyo dadka hoos loo eego dadkan intii suuqa la iskaga laayo waxa weeye dhig islaamka haddana la leeyahay waxa weeye tiyareed
waa laga sii daayay gabadhii dishay sharciga islaamka hala mariyo dawladda waxaan leenahay cadaaladda ha laga shaqeeyo waxa weeyaan dadka islaamka an-nafsu bin-nafsi baa la yidhi wan-nafsu bin-nafsi wal-udhunu bil-udhuni diinta islaamka waxay qabtaa in ruuxii ruux dila loo dilo ruuxii waxa weeye dheg gooyo in dheg loo gooyo ruux il rido il loo rido walaalayaal waxa weeyaan in sharciga islaamka laynagu dhaqo dad islaama maan nahay dad muslima maan nahay diin baan ku leenahay diinteenu waa muslim waxa weeye waa inaan cadaaladda ka shaqeyno gabadhii la sii daayena waxa weeye sida sharciga in cadaaladdu ay waxay ka qabtay in la mariyo inantaa yar Allah u naxariisto waxaan uga tacsiyeenaynaa inantaa yar walaasheena ee gardarrada lagu dilay leenahay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo guurtidaba waxaan leenahay ilmaha yar carruurta suuqa dhexdiisa lagu gowracay ee 10 jirka ah ee dhibaataysan hooyada bartaha waagi bariba suuqa ku hoysay ilmaheed inta lagu hoos gowracay gabadhina cadaalad darro lagu soo daayay cadaaladda ha loo soo eego inta la iswada gowracay suuqa la isku sii daynay dhibaato leedahay mushkilad bay leedahay umada waagi bariba inta suuqa lagu gowracay ilmaha yar 12 jirka lagu gowracay naagtii la soo daayay aan cadaalad la marinin cadaaladda hoos loo eegaan leenahay oo hooyada dhibaataysan hoos loo eego ilmaheed lagu hoos gowracay hoos loo eegaan leenahay taasan loo dilo gabadha iyada loo soo qabto loo dilaan leenahay doonta halka midida lagu dilay suuqa bartankiisa ee dadku dawladdu sii daayeen madaxweynaha waxaan ka codsanaa si degdeg ah inta gacan ku dhiigli dilay bila naga sii daayeen lagu soo qabto lagu soo celiyo barteedii waxaan dawladda u sheegayaa inay sharci ku socdaan ee sharciga daafacaan nafta dishay inay ajasheeda weydaariyaan sharci tii dishay imika suuqa way ku jirtaa hooyadeed way hormartaa had iyo jeer waan dilayaa bay tiraahdaa wad faantay maaha marka madaxweynaha waxaan u sheegaynaa sharafta maamuusta leh inuu waajibkeeda noo mariyo ayaan ka codsanaynaa dhacday suuqan waaheen waxa xaqdar ayaa lagu dilay imikana iyadana hawshii aan la dhameyn baa inantii lagu soo daayay reerkii markaa waxa qurux badnayd inta dhinac loo kala dhacayna dadka laga joogsay markaa dilka fooshxana markaa suuqa ka dhacay ka xunnahay waxa hooyo deeqa ku dhacay ee inanteeda yar inta la dilay bila cadaalad inta loo dilay kabacdina ayada oo la heshiin laga sii daayay maxkamadda waxaan odhan lahaa dawladda Soomaaliland maxkamadda sare ee sii daysay inanta yar cadaaladda ku kala xukuma dadka waxaan leeyahay gabadha maalin kasta oo yeesa inanta yar bilaabaha waxaan odhan lahaa xaqeega iyo waajibaadkii ku lahayd ummadda in loo soo celiyo si sharcigu ku jiro waa Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 magaalada Hargeysa.